Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa maanta howlgal ay ka sameeyeen deegaano hoos taga degmooyinka Jowhar iyo Raagacele ee gobolka Shabeellaha Dhexe kuwaasi oo ay ku sugnaayeen ururka Al-Shabaab. Saraakiisha howlgalka hogaaminaysa ayaa waxaa ka mid ahaa taliyaha qaybta 27aad ee militariga Soomaaliya Jenaraal Axmed Maxamed Tiradisho. Inta uu howlgalka socday waxaa dagaal u dhex maray ciidamada dowladda federaalka iyo ururka Al-Shabaab kaasi oo ay ka dhasheen khasaare isugu jiray dhimasho iyo dhaawac. Saraakiisha oo ka warbixiyay howlgalladan ayaa sheegay in howlgalkan inta uu socday ay dagaalo kala kulmeen ururka Al-Shabaab isla markaana ay ka dileen tiro horjoogyaal ah. Taliyaha qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa tilmaamay inay tiro maxaabiis ah ka soo qabteen howlgalka Al-Shabaab ay ku qaadeen ciidamada militariga ah ee Soomaaliya. Goobihii lagu dagaalamay ayaa degan waxaana la wareegay ciidamada dowladda kadib markii ay Al-Shabaab isaga baxeen maanta.